ciyaarihii xamaasada badnaa ee London Derby ee Chelsea iyo Tottenham ayaa dib u soo nooleeyay markii xalay feer iyo farlaab ay isku bilaabeen labada kooxood ee Conte iyo Tuchel ninka Jarmalka iyo ninka Talyaaniga ayaa xalay feer iyo farlaab kala saaray in badanoo labada gool ay ciyaartooyda laba ay labada kooxood ay natiijada ku dhamaatay marba kooxdii gool dhalis ayaa coach kale hortiisa ama macallin kale hortiisa lagu dabaaldegay taasoo xamaasadda kor u sii shareerisay markii uu dambeyntii ciyaartay oo dhamaadkii ahayd oo labada kooxood isku dabaaldegay oo labadooda oo la kala xajin waayo ninba nin kale af Talyaani af German isku caynayeen pachu adahay wala ciyaaraya dib u soo nooleeyeen iyo haddana ugu dambeys macallin ugu dambeys oo garsooraha oo roose siiyay labada koox oo ciyaaraha dambe ay Premier League kooxooda ka maqnaan doonaan ay kor ka daawan doonaan wala ciyaartan aan caadin Chelsea Tottenham xilli hore ayaa 67 daqiiqo markii hal gool ugu hayay oo Tottenham loo yaabay ayaa gool barbareetay hal iyo hal ciyaartii oo kor u sii shareed haddana Chelsea ayaa gool kale labaad u dhaliyay James waa James man gool kale u dhaliyay oo Tottenham yaaban oo nafta gacanta oo twice wana gacanta twice ayaa xilli dambe ay 90 daqiiqo dhamaatay oo 5 daqiiqo lagu daray ayaa xilli dheeriyada daqiiqad u dambeysay ayaa madax u dheeriyay kabtankooda ama kabtanka Ingiriiska ee Harry Kane wadasho wala madaxa derbigan madaxweyntan madaxan caadin ayuu dhaliyay oo ciyaartii ku soo ilaatay 2-2 halka labada koox ay buuqoodii xamaasadda dhinac kale u wareegtay oo refereegan garsoorahan oo roose labada macallin koox ka siiyay ciyaartii ku soo ilaatay London Derby Tottenham iyo Chelsea ayo 2-2 kala baxeen Stamford Bridge ciyaaraha dambe xiisaha leh waa arki doonaa